Bismillah, Assalaamu calaykum. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, hadba taa idin tahay. Inshallah maanta waxaan isla eegaynaa qaybtii saddexaad ee programming languageska iyo waxyaabaha loo isticmaalo. Labadii qayb hore waxaan ugu soo kala hadalnay Python oo qaybtii koowaad aan kusoo falanqaynay, ayada aan ku bilaawnay wax badan aan soo falanqaynay, iyo qaybtii labaad oo aan ugu soo hadalnay sidoo kale C++. Inshallah qaybtii saddexaadna waxaan ku eegi doonaa oo aan ku falanqayn doonaa hadduu iyo bikraal noqdo Java. Java waa mid ka mid ah programming languages ugu caansan ee qof walba oo naga mid ahna si ayuu u isticmaalaa Java, oo yacni wax Java lagu sameeyey ayuu isticmaalaa qof walba. Idan waxaan ka eegi doonaa waa maxay Java, halkeed sidee u baran kartaa, halkeedna ka baran kartaa, maxaa loo isticmaalaa Java, yaa isticmaala, yacni kambaniyada isticmaalo, qaar ka mid ah application ama website ama software lagu sameeyey ama Java isticmaala, iyo what's next idan oo bonuska aan u hadli doono. Java waa high level programming languageska. Waxa saa hore usoo sheegnay waxaa loo kala qaadaa high level iyo low level, oo low level waa machine learning languageska oo 0 and 1. High level kan waa human readable oo bini'aadamka ay fahmi karaan. Class based waa oo Java code-ka dhan waa class oo wax waliba class ay hoos tagi doonaan. Object oriented waa OOP sidoo kale. Java waa general purpose programming language. That means sida aan arki doono meelaha loo isticmaalo maxadidno meelo fara badan ayaa loo isticmaali karaa. Waxaana loo talagalay qofka programmerka inuu hal jeer uu qoro code-keeda uu run gareeyo execute markuu ku sameeyo meel walba uu hadhow geeyo waa ku isticmaali karaa. That means code-ka haddii aad qortid oo aad markuu shaqeeyo aad tijaabiso meesha aad rabto ayaad hadhow ku run gareyn kartaa. Waxaa la dhahaa write once run everywhere. Hal jeer qor programka aad tijaabi hadduu kuu shaqeeyo meesha aad ayaad hadhow ku run gareyn kartaa. yacni window haddii aad ku qortay aad ku run gareyso hadhow Linux haddii aad geyso Mac waxba iskama bedeli doono, oo just waxaad u baahan doontaa inaad environment-kaada aad set up gareyso. Waayo Java code marka aad run gareyso waxaa la abuuraa code yar oo machine code oo la lahaa bit class ama dot class ku dhamaanaya. Hadhow code-kaas ayaa qaadanaysaa oo waad ku run gareyn kartaa meel walba aad tagtid. Java ninkan lahaay James Gosling ayaa sameeyey, oo shirkadda Sun Microsystems ayaa koodii hor lahayd, laakiin hadda waxaa iibsatay oo xuquuqdeeda leh ama milkiyadeeda leh oo shirkadda Oracle. Version-kii ugu horreeyay Javadan wuxuu soo baxay 95-tii, wuxuuna ka qayb ahaa Sun Microsystems platform-ka, yacni website-kooda ayuu ku soo baxay markii hore. Sideed u baran kartaa waxaan ku bilaabnay basics oo yacni syntax-ka, data types-ka, variables-ka iyo waxyaabahaas la midka ah, loops, array. Sidoo kale intermediates waxaa soo gali karaa in operatorada kala duwan classes-ka. Operator laba jeer soo celiyay halkan hoose ayuu imaanaa sida badan. Classes-ka, objects-ka, functions-ka, ilaa pointerada, input stream ama input output streams-ka iyo waxyaabaha kale la midka ah. Advanced agent topics-ka haddii aan soo qaadan waxaan ka soo qaadan karnaa inheritance-ga, constructor-ka, ilaa method overloading, method overwriting iyo waxyaalaha libraries-ka, frameworks-ka kala duwan. Intaas markaad ka soo gudubtid, laakiin waxaa ka hor waxyaabahaas dhan inaad marka hore aad u leedahay waxaan interest aad xiisaynaysid, markaas ayaad baran kartaa. Laakiin saddexdaas qodob markaad ka soo gudubtay waxaa xiga project-yadan sida caadiga ah waxaad ku bilowdaa waxyaabaha yaryarka ee basics-ka sida calculator camal aad tusaale u soo qaadan karnaa, waxyaabaha la midka ah. Kadibna mar walba project-kii kii hore mid ka sii weyn sameey. Programming languages-kana mar walba aad practice gareysid wax badan aad sameysid ayaad baran kartaa. Kadibna haddii aad awoodid open projects-ka contribution ku sameey, oo haddii xariif aad ku noqotid. Halkeed ka baran kartaa waxaan soo qaadanaynaa website-yada Udemy oo paid version ah oo aad iibsanaysaa kaas courses-kaana, W3 Schools, edX oo edX waxaa la programming.edx inuu ahaa jeclasaas URL-kiisa, Coursera, Codecademy, Tutorials Point, waxaan geek for geeks mid ay dhahaan maxadin waxaani waa sample. YouTube-da ayagana waxaan ka soo qaadan karnaa programming with Mosh, Brocode iyo Eduarka iyo waxyaabahaas ayagana ka soo qaadan karnaa, oo intooda badan hadda Eduarka camal website ayagana way leeyihiin. Buugagta waxaa soo qaadan karnaa Effective Java, sidoo kale Head First Java, Java the Complete Reference,
sidoo kale waxaa soo qaadan karnaa Java concurrency iyo kuwa kale la midka ah faraha badan. maxaa loo isticmaalaa Java mobile applicationska kala duwan oo loo isticmaala oo inta badan wax Play Store application aa saaran ama telefoonkaada ku jira sida ay u badan yihiin waxaa lagu sameeyey Java. Inkastoo hadda Flutter ay soo baxday luuqadda officialka hadda Kotlin ay tahay oo Java error iyo waxyaaba sidaas looga cararay. sidoo kale website-yada caadi sida kala duwan oo website-ka hadduu online yahay aad ka dhigi karta application adigoo step yar u maraya oo kusoo xiray web viewer. laakiin applicationada mobile sida ay u badan yihiin waxaa lagu sameeyey Java. desktop UIs kala duwan oo lagu sameyn karaa ayna applicationada kombiyuutarada waxyaalahaas loogu talagalay. sidoo kale web based applications waa lagu sameyn karaa iyo web serverada oo waxay leedahay Java web JSP Java Page Server lahay oo website waxyaalahaas loogu talagalay. Java Enterprise application ayadana waa lagu sameyn karaa. sidoo kale APIs kala duwan waxaa kaloo lagu sameyn karaa scientific applicationada. waxaa lagu sameyn karaa gaming applicationada kala duwan ha noqdaan web based and mobile applications. distributed applications kala duwan oo lagu sameyn karaa. distributed application marka aan leenahay tusaale camal waxaa jira application marka aad iibsanaysid hal computer u rabo 2 computer u rabo aad dhihaysid sax. haddii tusaale fiican aan soo qaadan antivirus waxyaabahaas camal embedded systems waa lagu sameeyaa in badan ayadana Java-da. waxaa kaloo lagu sameeyaa business applicationada kala duwan. business application marka aan leenahay way ka duwan yihiin applicationada caadiga oo business application functionality dheer ay u baahan yihiin sida e-commerce iyo application normal isku mid ma noqonayaan oo ay kala duwan yihiin. cloud based applications faraha badan oo lagu sameeyaa kala duwan online storage big data technologies mid ka mid ah maadooyinka caalamka sii qabsanaya ayadana waa lagu sameeyaa. iyo waxyaabaha kale la mid ah. Java-da hadda waxaa zaid u sii gelayo oo in badan maalmahan dambe ay in badan lagu sameeyaa hadda oo saameyn fiican ay ku yeelanaysaa dhanka AI-da iyo artificial intelligence oo haddii aad maqashay gawaarida automatic isku wada in badan ka mid ah Java ayaa lagu sameeyaa. yaa isticmaala yani kambaniyada Java isticmaala ayadana waxaan kasoo qaadan karnaa waxaa la xisaabta meel ku qoro 9835 company ayaa isticmaala sida hadda la sheegay inkastoo exact aysan ahayn oo la hubin. laakiin waad dareemi kartaa muhiimadda Java ay leedahay marka lambarkaasi aad aragtid mise aad maqashid. Google ayaa ugu caansan kambaniyada isticmaalaan kasoo qaadan karnaa. Instagram ayaan kasoo qaadan karnaa. sidoo kale Amazon sidoo kale waa isticmaalaan. LinkedIn ayagana waa isticmaalaan. website-kaas ama application-kaas dadka professionals-ka iyo waxyaabahaas inay content sharing ay ku sameeyaan loogu talagalay. Snapchat application-kan inta badan caanka qof walba wuu iska yaqaan. intiis badan Java ayaa lagu sameeyay asana. Netflix Java ayay isticmaashaa shirkadaas dheh. Netflix shirkadda ayadana caanka streaming ayadana Java ayay isticmaashaa. Pinterest asana waa website ama application asana oo sawirada iyo waxyaabaha Pinterest-ga iyo waxyaabahaas aad saaratid lagu soo gudbiyo asana waxay isticmaalaan Java. Uber shirkadda takaasida caanka ayadana waa isticmaashaa Java. Airbnb waa asana news web akhbaaraadka waxyaabahaas lagu soo gudbiyo waa isticmaalaan. eBay website-kaas asana oo online payment-ga waa isticmaalaan. Telegram Messenger ka naqaan sidoo kale waa isticmaalaan Java. Canva asana waa application ama website oo logooyinka iyo business kaararka iyo waxyaabahaas in lagu sameeyo loogu talagalay asana in badan waa isticmaalaan Java. Picnic platform ama Picnic media ayagana waa website kale oo ayagana waxyaabaha wuxuu ku caan yahay website-kan dadka gudaha kiraysanaya iyo kuwa gudaha iska kireynaya ay isku xiraan website asana caan weey. Spotify asana website-kaas online streaming iyo waxyaabahaas asana waa isticmaalaan shirkadaas. Lyft ayadana waa shirkad kale oo sida Uber camal oo takaasida iyo waxyaabahaas waa isticmaalaan Java in badan. Fox Media asana website kale oo asana news-ka akhbaaraadka iyo waxyaabahaas sida kuwa politics-ka iyo business-ka waxyaabahaas la xiriyo ayagana waa isticmaalaan iyo kuwa kale la midka ah. sidoo kale inta waxaan ku eegaynaa application ama website caan lagu dhisay ama Java isticmaalo. applicationadaas waxaa ugu caansan aan soo qaadan karnaa Nimbus Messenger mid ka mid ah applicationada 2013 14 inuu ahaa jecel
زائد وشناي يعني واتساب ما قرنا إنه ملاينا سوري أنت اسمه كفتن application كاس عانك هواجس هدي إنه شقي إنك المشي كالإكزيكت ليه أي نوع استعمالها شركة داس application كاس أنتيس بدن سيس عادي application كاس automatic راح يلوس من جافا أي استعمالها وادات بيس عمل أي استعمالها جافا ده تويتر السوشيال ميديا أساسا مثل ما دكو عن سنة زائد كلا استعماله أساسا نيوز كحياس بقى هات ترندين كبدن أساسا وحلوس من جافا think free office واسن application أم وشقة سيدي office كان عادي أنا قانا office application إسكه أسن وحلوس من جافا signal application كاس أسن مركي واتساب خلقي لك أي شيء security حواسي إن بدن إسكده وريجي جري صوب حي مركز مسوبحين لكن مركز وسو عام بحي عن نقضي أسن واي استعمالا أم جافا يلوس مي مركز أساسا أكرونيم اللي سوق يبي وشركة أي تريدينج وحياة سيستم وسميسة سيدي أوراكل عمل وشقيسة أيجنا جافا يا لوسمي ناسا والويند أساسا وفيرجوال ماب أو جوجل آث عمل وشقي أساسا جافا يا لوسمي كاش أب أيجنا وأبليكيشن أيجنا تريدينج وحياة لو تلقلي بيمنت سافيس أيجنا واستعمالا أم جافا يا لوسمي أو باك إندجا يلا استعمالا نتفليكس سهروسو شغني بعيدا ابلكيشن كا ويبسايت كو جافا يو سميسين هي كانفا سهروسو شغني سن شركه دو ابلكيشن ام ويبسايت uu yahay oo logooyin ka waxyaalahaas lagu sameeyo java in badan isticmaalaan Spotify website ka asasan caanka sidoo kale application way isticmaalaan java LinkedIn ayagana way isticmaalaan website ka sama application ka professional ka Amazon ayagana aad ay u isticmaalaan Minecraft أصلاً ويب سايت كلا sorry application أم ويب سايت ويا gaming أيهن لو ترجلي gaming application وايس معنا Ultra Mix أصلاً ويب سايت أم application لو ترجلي DJs كحياس أيهن إنا audio حياس أي كهجة جسان أيهن جافا أيو استعمال application كاسي وبيرا ميني ويب سايت كاس عنك أصلاً براوسر كأصلاً وايس معنا جافا iyo waxyaabaha kale ee limidka ah so what's next waxaan soo aragnay oo aan soo falanqaynay oo aan soo sheegnay java inay tahay mid ka mid applications programming languages kale loo isticmaalo mobile applications kala duwan in lagu sameeyo weli waa favorite waa mid ugu caansan inkastoo Kotlin iyo Flutter iyo waxyaabo kale ay jiraan laakiin weli java waa mid ugu haysatay marka la mobile applications weli waxaa jira aan soo sheegnay web view ayina inaad ku xiri karto website ka sidaas application aad ugu dhigi karto still laakiin java waa mid ugu caansan applicationada lagu sameeyo waxaan ka soo hadalnay markaan java waa maxay sidaad u barnay iyo meelaha aad ka baran lahayd iyo shirkadaha isticmaala waxyaabo lagu sameeyay iyo shirkadaha waxyaabo ay u isticmaalaan marka intaas haddii aad ogtahay waxaan filayaa in badan inaad java inta badan horta jaamacadaha Soomaaliya waxaa marka lagu dhigay java just database camal ayay u isticmaalaan I hope Android kan waa lagu qaataa oo java ayaa lagu programyaa laakiin java ay ku weynta waxaas oo waxaan filayaa hadda information kugu filan inaad ka haysatid at least aad fahansan tahay in badan waxyaabaha loo isticmaalo iyo ahmiyadda javada ay leedahay aad fahansan tahay so haddii aad baranaysid meelaha aad ka bar lahayd iyo sida aad u baran lahayd sample iyo tusaale aan ka soo bixinay waxaan rajaynayaa marka haddii in badan aad is weydiinaysay ahmiyadda java inaad hadda aad ugu yaraan aqbaar ka haysatid ama wax kugu filan information kugu filan research aad si samaysan kartid waxaan horta marka aad waxaa lahaa computer science ama computer programming waa research 99% waa research iyo waxa try and error intaas oo ka kooban yahay isaga dhan insha Allah marka waxaan rajaynayaa inaad research-kaada iyo waxyaabo aad fahantay aad isku darsan karto hor u sii socon karto next step-na aad go'aansan karto qaybtii saddexaad oo aan ugu hadlaynay java ayadana intaas ayaan ku soo koobi doonaa hadduu eebbe karaale noqdo tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijka wassalaamu calaykum